حبيبي كحردن لافتيدا حياتي كنول حسكيغاي بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب تقاليقا ميل كستا جوجتان آديات بندي سلامينا مسيس حيس حرقو iyo cawaale aadan aad baan soo dhaweynaya cawaale aadan iyo Mrs. Xarago markii ugu horeysay inkastoo xiis aanay ku cusbeen channelkayga haddana cawaale aadan ayaa nagu cusub caawa waana lamaanihi oo isku duuban aad baan soo dhaweynaya marka hore waan dhownahay boqolkiiba waa isku afuun xiis ma gudbeynay agaasi markuu ku xidhay bas hadalka lagu noqonayo waayahay waxaan joognaa magaalada Hargeysa muddooyinka ugu dambeeyay horta bal ka waran sidii leedinku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa showgii qarniga ayaa idin dhacay asxaabtiini ayaa jawi degan la qaadatay bal arrimaha ka waran wallahi lagama hadli karo si fiican loo soo dhaweeyay way boqol dadkii soo dhaweeyay dhamaantoodna waan uga mahadcelinaynaa kulli toolayntiina soo dhaweysay wuxuu badnaayeen حاجة أصحابتي قديمة واي عوالة أنا وحو دور تشربورت مقالة هرقيسي شو قبطي لكن شو دوا وكدونايو سقو حيس وطا أو لما أنا أي وشو جاي كورن ما دام شو يدي هوري كود عشري وكدونا كني لا ما هذي كردي يا كان وا نفته يقول له بيا كدعم نفته يقول له بيا كدعم وهاي ما دام أو هذا الكسافر ستان أنت بدن وح فنانين تسوي عسونو ayna la wadaagan codadkooda macaan inkastoo codadkiina aan laga hadli karin ma sha Allah bal waxaan soo dhaweynayaa heestii aad marwada u qaatay ee bulshada Soomaaliyeed oo dhan qabsatay ee meel kasta waxaan ku ka dhacday heesta barnaamijkeeda ka waran markaad dhageysanaysaan ama markii aad aragteen dadkii Soomaaliyeed oo xoog ay u qabsatay wallahi kulli aniga dareen iyay magaranaysaa iga yimid bay ahayd waxay ka hadlaysay gebi wada run bay ahayd waxay ii tahay inaan unba og ma sha Allah kulli dadka adan saga sheego oo laga ceeriyo way warraba in laga ilayo way marka kulli waxay ahayd wax run ah oo aniga inside gudahayga ka yimid way heeskan dib wixii ka dhacay niga arkay aadiya lagama bahdi karo way bal ka waran hadaynu caawa yar dulmarno والله وانتو العررينا كل ما مرحبا وي مرحبا حيسي كوي نعبا كولان كلابدينا ايه ايكو حولنا كلاقيتينا مكعاكو فين مانتا علمكو سيدين مانتا فرحدان كفاحينو مكويا مانتا absolutely وي عاو halkan horta wareys badan ma naasoo fadhiisan lamaanu maadaama ay ku baashalayaan magaaladoodii waxaan jeclaystay bal inaan dub xasuusno heestii ugu horeysay ee aad wada qaadeen xiis markaad ka degtay magaalada Jigjiga ee joogiga jacaylka lahayd heestan ku xaday heestan ku xaday dadku waxay yiraahdeen heestaas ma jacaylkoodu ku bilaabmay mise walaaltinimo ku bilaabantay wallahi horta qeyrkay waan dhaafaya may waa laga horreeyay way wariday way arabahaygo ya kurisa arabahaygo barta codka aynu galo in yar waxay ahayd oraahdaada macaani aad baan kugu raacay wala jirto way dakartii eeba ku siiyo aqoontaan kugu raacay ummad weeyi dadkeenu inba meel ku aroorte isiraan garanayo aftirkaan kugu raacay isiraan garanayo aftirkaan kugu doortay ma sha Allah heesta cawaalo maadaama tahay heestii ugu horeysay wada qaadeen bulshada Soomaaliyeedna ay runtii hees si fiican u gaadhay ma markaas uu jacaylka xiriirkiina jacaylku bilowday mise walaalunba waayadaaba ana goonideeda u qaaday wallay helo wallay haya sida hawdaago ma sha Allah anigu cawaale aadan heesiisa heesa badan oo xoog jecel baa jira waxa kamid ah heesta leedo idile ayaan bal heestaan ku noqono way xasuusnaa idile ayaan idile ugbaad
idil ayaan aqligaygii ambaqad wadada ilinkii saxdo abidka adigu wii ilwaadsamo oo agabsaniyo aayatiin la hawe waayahay bal xiis laftarkeeda cawaalun buu badda ku koomeeyo xaggan isaga iga soo xigo waana isku af moogtay saa darteed baan uu hadalka inooga soo gudbiyey xiisida laftarkeeda iyadoo keligaa bay hargeysay ma jirtay bal ka warra jawigaaga maadaamaad odaygaagii cawaalaad gacanta haysatay magaalada hargeysa ku baashaaraysa maasha allah aad baan ugu faraxsanahay anoo xaajkeygii iyo lamaanaba inaan iska mushaaxa aad iyo lagama hadli karo xiis laftarkeedu hees bay markii dambe arooska kadib ay soo qaaday nasiibka isaacida la yidhahdaa heesta lagamaba hadli karo waa layidhi bal heesta aad iyo aad bal heesta ka yara war heestaa warkeeda uu dhan yahay waay oo dee xaajigaa gabayga iga xidho erin lay sameeyaba sutiili waayma kasoo jaraan islaayo laakiin jaritaan ugu dhow bal heesta codkaagii macaanaa ee dahabiga ahaa masrigii aan sugayayo naqrooba iyo curto neecabay marig udgoon nasiibkan isaacido naruuradiisida nasiibkan isaacido naruuradiisida waxaad sheegide waa barbardhacay ciyaarta barbardhacay halkaasay ku xidhantay cawaale aadan baan jecelahay hal heesoo markaa ugu dambeysana sida codkiisa macaan heestan dadku aad iyo aad bay u jecel yihiin waa heesihii uu baryahan dhexe soo qaaday xabiibi baa la idhahdaa horta xabiibi maanta qisadeedaan kaaga sheekay dadku dee kulley nin iyo suud rabo u macnaystay laakiin anigu siday qisada ku timiday inanka ituma waxaa la idhahdaa amiin daauud inankaabaa waxaa dhacday qisad buu iga sheekeeyey isagoo musica itumay wuxuu igu yiri markaa qisadu markay dhacday anigu maba joogin Jabuuti Canadaan joogay markaa wuxuu igu yiri gabadh Tigray ah oo Jabuuti timiday oo aad u qurux badnayd iyaan guursaday wuxuu yiri markaa gabadha waa la isku leeynayay oo rag badan oo magaranaysa dinta la iska saaray gabadhii baa jeclaatay isaga bay jeclaatay maasha Allah nasiib badan marka isaga iga sheekeynaya waxaan isku baranay meel night club yaan gabadha isku baranay then gabadha xidhiid baana dhex maray gabadhii ninkii way jeclaatay marka si ay isku guursadaan waxay ku tiri maxaa shuruud ah wuxuu ku yidhi anu muslim baana gabadhi way muslimtay diintii bay soo gashay diinta islaamkay soo gashay way shareeratay qur-aankii bay baratay waa inantii la gaari waayey marka mucatabkii waxay way tuurtay gabadhii marka dee inankii iyo gabadhiina dee waa kuwa isqaba soo ma wixii dee alla siiyey bay xaggaa dee ku cunayeen oo dee arsaaqi dee ilaahay u qoray dee aduu noloshooda iska fiicneed dee saaxiibkii baa suuqa laga kari waayey isagaa iga sheekeynaya markaasuu hamiinka markaan soo hoyday buu yidhi iyo gar ii fadhiisataa tiraa diintii yani gal igu tiri dee sidan aad u dhaqmaysa mayba dhigayne si kale dhigaysa maxaa qaldan markaa gabadhii waxbayna hadal kugu daalin gabadhii maalin maalmaha ka mid a dee waxay tiri isagoo hurda iyo ka socotay uu soo kacay markaasuu arkay meeshii degalaangelina oo dharkeedii guratay suu dee gabadhii xidhiir buu ka doondoonay raadiyey uu raadiyey xidhiirkeedii u waayey 2 sano ka bacdi iyo xidhiir ismaqleen marka 2 sano ka bacdi markay ismaqlayaanna waa maru guursaday oo carooskiisii bay ka aragtay Facebook markaasay ku tiri nacam dee qof xun inaad tahay waan ogaa laakiin qof saa u xun inaad tahay maan ogeyn marka haddii iyadu xilligaa jacayl ka dhamaaday laakiin isaga iska dhibaysay dee qisadii biiga sheekay isagoo heesii tumayo war tana tumaysa jooji waan tanaaba hees kale tanaaba hees kale aan huride tanaaba dee la tumayaayo iyo wallahi waaba rabiba marka waa sida aawadeed waxaan afka canfariga oo afka cafarta ugu bilaabay gabadhu afka canfariga ay fahmaysay iyo Soomaaliga marka wixii baan isugu laaqay cafartiisa si gabadhii bal message u gaari kara dee ma fahanti cawaalinta ugu badan heesaha waxa jira iyagu laftirkoodu aad isku jir ka dhigtay ma iska jeceshay ni aanu kala jarada iska jeclay baan sheegay ni kala jarada bal way heesta cod ahaan adigu qaaday habibi ku xadhan laabtayda hayaati ku nool xiskaygaye isweeri xaashee igamaad geyin halmeeri inaad xanuun martaa
adoo i xasiliyayo i xanaaneeya i xaq dhowro ka jira xindhib dhexdeena anaa xumaado beenu xadreeye kumana xaq dhowrin xabiibi ku xardhan laftayda xayaati waa ku nool xiskaygaye sameed shirku waa xidhanyahay nabi maxamed raago ogtahay heesada intaa lagu jecelay hadday kusoo xidhi lahayd oo iska fiicnaada marka sanadkaysta ama saailmiya intanahiyo waydhaho markaan iskama jiro ilinii qubaaye inaad haddayn jirin ifka nolosha taaliyo arun jacaylku beeyahay waraad baad u mahadsan tihiin caawa jacayl baan dhadhamaynaa macal dadkayna daawanaya macal kuwii wax duubayay barkhad naasiriya kay ka mid yihiin dhammaantiinba naga dulduulaya idinkana waan idiin mahad celinaya dee intaasuu kusoo gebagabaynaynaa tan iyo tan isugu imaan doona nabadgelyo warniga gabadhana dee subscribe